ogaadeen yani uu warramay marka waa sheekaysteen wuxuu yiri wadaadu ahay ninka hadduu qamiis uu dhinto oo jimca uu qabri u hooyay waa ehli janno kii ogaadeen ka waa soo baaday inaaba waa sidaan maaganahay sida aan rabina u dhinto waayay janna rawaay dadka kale oo ay ugu horeeyaan reer koonfur galbeed sida ninka ogaadeen oo kale waxaa la rabaa inay bartaan inay madaxweynahooda ayagana soo celiyaan. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuuri dunya waddiin wasala allahu calayhi wasalam. madaxda meeshan isugu timid uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxda kale kala duwan kuwa hore iyo kuwa hadda waxayaba salaanta islaamka aan ku salaamayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam way fiicnay sidii raggii igu horreeyay inaan magacyada tiriyo laakiin waqtigoo gaaban dartiisa nin walbaba meeshaan lama kala yareen mansabka iyo magaca uu ku fadhiyo ku salaamay laba islaamoodoo reebaar reera aha sheekaysta marka abay ku jireen midaa waxay tiri abayow suubanaaga iyo rasuulka ay weyn suubani iyo rasuulka hal waay marka suubano rasuulkii uu leeyahay maqashay moogta marka tii kala soo boodo inay hal tahay ma og inay laba yihiin umaleynayaan tii kala soo boodo waxay tiri aaday inta dad yaryar ma roogaan lamaadu dadweynu yahay hadda inta dad yaryar ma joogeen kulligii waa salaamantiin salaan kadib marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka iyo dowladda Puntland soo dhaweyntii qiimaha badnayd ayna soo dhaweeyeen aad iyo aad ugu mahadsantihiin waana inkaga mahad celinaynaa ixtiraamkii iyo sharaftii iyo karaamadii aan ugu soo dhaweyseen. sidaas oo kale waxaan rabaa inaan inta hambalyo iyo duco aan uga diro madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka madaxdii la doortay oo dhan iyo xildhibaanadii Puntland ayagana la doortay inaan yidhaaho hambalyo mas-uuliyadda culus oo laydin dhiibay ama aad horey u hayseen oo laydinku soo celiyey ilaahay ha idiin fududeeyo garabkiinana allaha galo jidkii hore iyo jid kasii fiicanna inaad qaadaan yaa idiin rajaynaynaa hoggaan fiican oo la mahadiyo oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Puntland ay mahadiyaan oo noqotaan yaan kugu duceeyay. intaas kadib waxaan xasuustaa 5 sano hadda waxaan nimid inta caleemasaarkii Saciid isla meeshaan soo istaagnay dadkan inta joogo dhan oo madaxda ah iyo dad kaloo maqan waa joogeen siyaabo kale loo joogo nin markaas xil hayay oo maanta joogo Saciid oo la caleemasaarayay anaa ka jira raggan kale oo dhan ragga galaal ka yimid marka waa fikiray intaan meesha fadhiyay maalintii 5 sano ka hor inta aan ka hadlaynay sidii loo fadhiyay yaa loo fadhiyaa sidii la isu eedaayay yaa la isu eedayaa sidii baana dastuur loo eedeynaya waxa la yaraatay xigmad ah oo soo korortay ma jirin. dadkii madaxdii hore tagtay madax kala timid madaxdii hore oo tagtay madaxdii kale timid ayagana maanta caleemasaarkii Saciida la isugu yimid si darar madax hore iyo madax dambaba waxa la sii sheeganay aniga baba arkinba 30 sano xasha maalin la leeyahay Soomaali maantana maalin ka fiican tahay ba maray waxba aan la dayrin ayadoo xasha la leeyahay ma arkin maalinkaas madaxdan oo dhan waa gudbeynayaan waxaa la lahaa dastuur baa la ansixiyay dadka la isku soo celiyo dalka la isku haayo hala mideeyo hala tashto intaas lagu jiray. waxaan ula jeedaa sidii madaxdii igu horreysay ay hore u sheegeen xukuumaddii ugu horreysay oo ku meel gaarkeeda oo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaa joogay ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi ra'iisul wasaare ah 2 sano markuu joogay eedii loo soo gudbiyey oo baarlamaanka la keenay waxay ahayd heshiiskii la galay
axdigii kumeel gaarka ahaa in laga baxo oo dastuurkii la dhammaystiro yaa lagu soo eedeeyey maalintaas ilaa iyo maanta waxaa la leeyahay dastuura la dhammaystiraayo kee waayo ninka dhammaystiraayo ninka jooga ma ah ninka dambe oo rajaynaya waa inuu yimaado kaasaa wuxuu rabaa inuu dastuurka dhammaystiro markuu yimaado marka dastuurka waa hilmaamaya dhammaystir markuu yidhaahdo kii kale oo uu ka soo tegay yaa wuxuu leeyahy lama dhammaystira isaa raba inuu dhammaystiro horta dowladnimada iyo horu socodka iyo wadajirka iyo waxyaalaha ballanqaadka ahoo la sheegayo waxay u baahan tahay in laga dhabeeyo shalay baarlamaanka federaalka soomaaliya tilaabadii uu qaaday muddo waxay ahayd albaabkii waxaa la furay dhammaystirka dastuurka ee dhammaystir lama dhammaystirin dastuurka habraaci baa la ansixiyey haddaan habraaci la ansixinin oon habraaci in la aada aan ahayn goormaa dastuur laga hadlaayo shuruudda ugu horreyso taa leedahay in habraaci la ansixiyey habraaci riddii dastuurka loo aadi lahaa baa la istaagay aniga marka waxaan qabaa baqrinta inti iska dayna doodaha iyo aragtiyada fiican nin walba oo mas-uul haya hadda xil hayo iyo nin walba oo siyaasi ahoo dalkan xil ka soo qabtay iyo nin kastoo raba hadda inuu qabto aragtidiisa iyo fikirkiisa fiican ayadoonan mucaaradad iyo qaylo ahayn ha keeno waxaan u hambaliyaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda runtii dadaalada uu suubiyey intii dastuurkan iyo habraacan iyo heshiiskii n c c oo ay puntland ka maqnayd aan gaarnay intii dadaal ahoo uu suubiyey madaxdii hore madaxweyneyaal ra-iisul wasaareyaal siyaasiyiin baarlamaan intaba uu talageliyey oo uu ku talagelinayo oo leeyahay intee u soconnaa aan hore u soconno ani marka waxaan soo dhaweynayaa oo dadka soomaaliyeedna ku bogaadinaya yaanan isku dheganaanin ayadoo heshiis la yahay lana tashanaayo lana wada jiro horey ha loo socdo hal qofna yaani weligeed 30 sana waxaa lagu jiray looma dhamada inta la daayo waa u wada dhannahay waxaa la yidhaha qabiila meeshuu qof ka joogana waa joogtaa meeshay laba ka joogtana waa ku dhan tahay soomaali waa wada dhan tahay maanta waxaan qabaa arrintan dastuurka iyo dhammaystirkeeda iyo horusocodka dowladnimada soomaaliya aan dhiirigelino aana garab istaagno sida ay hadda wax ku socdaan dadka soomaaliyeed oo siyaasiyiinta ahoo iyo aragtiyada kala duwan maanta maalin ka munaasabsan tahay ka fiican tahay ma lahane ha laga hadlo aana u hambaliyeyna madaxda ka shaqeynayso gaar ahaan aniga shaksiyan waxaan rabaa inaan inta hambaliyo uga jeediyo guddoomiyaha baarlamaanka shaqaadan maxamed nuur oo si aad u qurux badan baarlamaanka mas-uuliyaddiisii waajibaadkiisa uga gurtay oo uu siday ahayd mariyey tantaas oo midda kale waa la hadlay oo waa la sheegay waxaa la yidhaahaa fulay xantiis ma moogo dadka soomaalida waa la kala warbadanya nimankan saaxiibaday aa noogu warbaday nimankii intana waday nimanka noo geeyey etoobiya noo geeyey yaa maantana waxay leeyihiin war maad bannaan baxdaan maa qayrisaan maa diidaan war arrinkaaba nimanka shalay noo geeyey warbaagaanka naga daaya maxaan u qayrinaynaa kasoo noqda welina maadan dhihin waana daba taagantihiin koonfur galbeed oon madaxweynaheeda ahay waxaan aaminsannahay marxaladdan maanta soomaaliya ka jirta waxaan aaminsannahay midnimada soomaaliya inaanan soomaaliya midnimadeeda la faragelin karin lana galagoyn karin waxaan kaloon aaminsannahay in dhulka iyo badda dadka soomaaliyeed ay leeyihiin ay ayaga leeyihiin cid gooni ahna ayna bixin karin cidnana ay heshiis ku lahaan karin soomaalina ay dhulkeeda lahaanaysana waa aaminsannahay waxaan kaloo aaminsannahay dowladda etoobiya waa dowlad ilaa iyo nebi aadan dad aan deris ahayn waayo intii la dhashay waxaan aaminsannahay in nabad iyo walaalnimo iyo heshiis iyo nin walbaba inuu wixiisa haysto wax heshiis lagu yahayna lagu wada noolaado in lagu wada joogaan aaminsannahay oon ayagana nala dagaalin annagana aan nala dagaalin walaalnimo iyo deris wanaag inaan isu kaashanno iska kaashanno ganacsiga iska kaashanno amniga walaalnimadaas aan ku wada joogno oon cidna aynan u arkin cidda kale inay cadowta laakiin marna qof kasta oo soomaali ahna ma aqbalayo annagana boosishinka annaga siyaasadeed kaas waayo oo wuxuu yahay faragelinta
midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo dhul iyo badbo mowqifkaasan ka taagan marka dadka oo sida goolida aan hore u sheegay oo nimankii saaxiibkay oo nimanka noo geeyay anoo joogo xaramka yaa waxaa la soo qaadayaa nin oday ahoo Oromo ahoo oo qoladii u tagaysay Muuse Biixa yaa inta sawirkiisa la soo qaaday baa sawirkayga lagu dhijinaa markaas waxaa leeyahay odaygu wuxuu joogaa Arsabo waa la soo baxayaa mid kale wuxuu soo qaadayaa adduunka waa adduun ah safiirkii aan la sawira waa isla qaraabadi weey waxa soo dad suubinayo marka maalintii madaxweynaha hadlay yaa nin soo waa wuxuu yiri madaxweynaha wuxuu sheegay ma maqashay waa masaajidka maya wax uusan ka hadlin ma lahaye ugu dambeeyay wuxuu yiri waa dawlad goboleedyadu canaantay waliba adiga inuu ku jeedaan u maleynaa wuxuu yiri waa la soconaa kuwa mukhaabaraadka hadda kula shiraayo deegaanadooda inay yihiin war ma ahaan dhahay aniga arrinteeda mukhaabaraad waa gudbisantaan mukhaabaraad nin la shiraayo waa nin aan waxba ka joogin aniga iridayba fadhiyaan dhahay aniga ma ahaan dhahay raggaas kala laystaa aniga xalkayga mukhaabaraad waa gudbisan yahay mukhaabaraad nin oo aan balala joogin oo hadda dad loo soo diray Soomaaliya aniga mukhaabaraad ma war isla joognaa baan iridayba fadhiyaan maxaa mukhaabaraad waa ka qaldantaan dhahay qoor iyo waxa la haysto dad iyo waayaan oo mukhaabaraadka loo soo diray marka kana taas waaye Soomaaliya waxa sidii madaxdii hore u sheegeen lagu badbaadin karo dalkeeda iyo deegaankeeda iyo midnimadeeda iyo sharafteeda waa midnimadaas oo hormuud yihiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo meesha fadhiya ninka maanta xil hayo in la garab istaago kii shalay hayay uu garab istaago kan rabana uu garab istaago si meesha loo socdo loo gaaro midaas midnimadaas ka aaminsanna midda kale runtii waxaa sheegay ra'iisul wasaarihii hore Saacid maanta Soomaaliya ayadoo oo dhibaatadii khawaarijta ay ka jiraan oo koonfurta Soomaaliya oo dhan iyo gobollada dhaxba ay go'doon yihiin oo shabaabkii dhibaateeyay abaaro joogto oo soo noqnoqdayna ay jireen yaa haddana daadad iyo ilaalin roob xoog leh yaa wuxuu ka daayay koonfurta Soomaaliya dhibaato yaab leh ilaa hadda socoto yuu geystay oo saameeyay dadka Soomaaliyeed oo dhan laga bilaabo wixii waa laga yaabaa aad xooggaan ugu yihiin Puntland ugu saameeyay laakiin inta aan ka warqabo Hirshabeelle ilaa iyo inta kale oo xalkiisa jirto ama buunda ha noqoto fatahaad webiga ha noqdo ama biyihii iska socday oo dadka baabi'inay ha noqdeen waxay baabi'iyeen waxyaalihii adeegyadii bulshada oo dhan ay baabi'iyeen waxay baabi'iyeen jidadkii waxay kala gooyeen xamar iyo baydhabo waxay kala gooyeen xamar iyo gadab waxay kala gooyeen isu socodkii hiiraan iyo xamar ama buunda ha noqoto ama jidka caadiga ahaa biyihii gooynaya dhibaatadaas xoog leh oo dadkii Soomaaliyeed ku soo noqotay oo buundooyinkaas iyo isu socodkii jartay ayadoo awalba uu shabaab uu hore u gooyay haddana taasna way ku soo darsantay marka madax iyo mas'uuliyiin iyo shacab iyo cid kasto intaan ogeyna ha ogaato khayradhaanta iyo waxqabadka maanta noo taagan uu ka tegay fatahaadii ay ka tegeen yay ka mid tahay marka waxaan rajaynaynaa madaxweynaha yaa kolley ka hadli doono arrintaas in si gooni ah madaxda Soomaaliyeed ay u fulinayaan weliba dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo xukuumaddaba ay u koogasho deegaanadaas dhibaatada xoog oo dadka Soomaaliyeed gaaray intaas kadib maadaama la daahay waxaan rabaa hal dardaaran oo muhiim ah inaan inta uga tago saaxiibkay Saciid aan kula dardaarmo waa aniga shakhsiyan dadkii Saciid saaxiibada la ahaa oo 5 sano isla soo shaqeeyay yaan ku jiray wax dhibahana isuma aan runtii dadaal tiro badan iyo shaqo aad u fiican iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed oo ka qabtay waa ku mahadsanyahay Saciidow 5 sano
hore waa soo xukuntay Puntland madaxda Soomaaliya ka mid ahay 5 sano dambana waa lagu doortay waxaan kugula talinayaa in yowda hal yareeyo dadka Soomaaliyeed hormuud u noqo isku hay hal ugu daydo Puntland waxay tahay hooyadii federaalka isteedada dhan aday ku fiirsanayaan dowladda federaalka iyo dastuur iyo nidaamkeeda iyo cid looga dayan lahaa oo laga fiirin lahaa baa tahay Soomaali isku hay waxa ku garanaysaa inay intaas jirto dadkan caleemasaarka yimid oo aragtiyada kala duwan u yimid waxa ugu muhiimsan ay yimaadeen waxa weeye inay caleemasaarka kala yimaado inuu inta ka jiri karo space siyaasadeed oo nabad iyo midnimo lagu heli karo iyo kulligood nin walba uu shaqadiisii iyo dantii uu hayo uu uga soo tagay madax hore iyo madaxa joogto marka ixtiraamkaas adiga iyo dadkan qiimaha badan ee reer Puntland la idin hayo iyo expectation-kan rajadan tirada badan oo idinka qabaan madaxdan Soomaaliyeed oo gobolada Soomaaliya ka kala timid adiga hogaamiye inaad ka dhabayso oo aad soo celiso Soomaalinimadii aad soo celiso wada hadalkii aad soo celiso midnimadii aad soo celiso sidii ugu wada jiri lahaa dadka Soomaaliyeed la isugu hayn lahaa dadka reer Puntlandna dad taariikh leh dowladnimada iyo ku dayashada badan yihiin ayagana waa mahadsan yihiin inay ayagana ay roolkooda muuqato intaasaan yani kugula dardaarmaya ugu dambeyntii nin ogaadeena yani nin u warramay marka waa sheekaysteen wuxuu yidhi wadaadu ahaay ninka hadduu qamiis uu dhinto oo jimca uu qabriga u hoydo waa ehlu janno ah kii ogaadeenkaa waa soo baaday inaaba waa sidaan maaganahay sida aan rabo inaan u dhinto waayey jannaa rabaayo dadka reer Puntland waxaan uga hambalyeynaynaa soo celinta siduu horey u sheegay madaxweyne Qoorqoor madaxweyne mar la doorto in mar labaad la doorto dadka kale oo ay ugu horeeyaan reer Koonfur Galbeed sida ninka ogaadeen oo kale waxaa la rabaa inay bartaan inay madaxweynahooda ayagana soo celiyaan marka waa sidaan maaganahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.